magaalada muqdisho oo ah hooyada nabadda iyo xudunta siyaasadda jamhuuriyadda waxay xalay martigelisay dhacdo aan horay loo filayn, dhacdo beddeshay jawigii siyaasadeed ee cakirnaa, isla markaana abuurtay rajo cusub oo ka dhex dhalatay mugdiga habeenka. xilli dadku hurdayeen, saacadaha dambena la gaaray, waxaa dhaqaaqay kolonyo aan caadi ahayn oo ka baxday madaxtooyada Villa Soomaaliya, iyagoo u jahaystay dhanka hoyga uu degan yahay madaxweynihii hore ee dalka, Sheekh Shariif Sheekh Axmed. socdaalkan ma ahayn mid caadi ah, wuxuu ahaa mid xambaarsan culays qaran, wuxuuna astaan u ahaa in siyaasadda Soomaaliya ay gaartay meel aan la isku fiirsan karin, meel u baahan bisayl, tanaasul, iyo in danta guud laga hormariyo danaha gaarka ah ee isdiidan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud, isagoo garwaaqsan xaaladda dalku marayo iyo daruuraha colaadeed ee dul hogganaya qaranka, ayaa qaatay go'aan geesinimo leh. wuxuu xalay albaabka u garaacay saaxiibkiisii hore, haddana ah hoggaamiye miisaan culus ku leh mucaaradka, Sheekh Shariif. kulankan oo qaatay saacado badan, lagana ilaaliyey indhaha warbaahinta intii uu socday, ayaa ahaa mid gogol xaar u ah badbaadada dalka. war-saxaafadeedka ka soo baxay xisbiga himilo qaran ee uu hoggaamiyo Sheekh Shariif ayaa daaha ka rogay sirta kulankaas, isagoo qiray in meesha lagu lafaguray tabashooyin shakhsi ah iyo kuwo qaran, balse guusha ugu weyn ay noqotay in arrimahaasi laga heshiiyey. erayga heshiis marka la isticmaalo xilligan oo kale, wuxuu la macno yahay in dabkii siyaasadda biyo lagu shubay, isla markaana labada dhinac ay garowsadeen inaanan la kala maarmin. qodobka ugu culus ee kulanka ka soo baxay, kaas oo ah midka ay Soomaali oo dhammi wada sugaysay, waa go'aanka madaxweyne xasan sheekh ee ku aadan aqbalidda shir wada tashi qaran. muddo dheer, mucaaradka iyo daneeyayaasha siyaasadda waxay ku celcelinayeen in dalku u baahan yahay wadahadal furan, in talada la wadaago, iyo in laga heshiiyo arrimaha masiiriga ah ee doorashooyinka. madaxweynaha oo markii hore u muuqday mid ku adag go'aankiisa, ayaa xalay muujiyey dabacsanaan siyaasadeed oo aad u sarraysa. wuxuu si toos ah uga dalbaday Sheekh Shariif inuu qaato door hoggaamineed, door odaynimo, iyo door dhexdhexaadin ah, si shirkaas wadatashiga ahi u noqdo mid midho dhal ah. tani waxay ka dhigan tahay in madaxweynuhu uu aqoonsaday inaan dalka lagu maamuli karin gacan maroorsiga, balse loo baahan yahay isku tanaasul iyo wadahadal dhab ah, sida uu Sheekh Shariif ku adkeeyey bayaanka. laakiin maxaa keenay isbeddelkan degdega ah? maxaa ku khasbay madaxweyne xasan sheekh inuu xalay u tago Sheekh Shariif? jawaabtu ma ahan mid ku kooban siyaasadda gudaha oo keliya. xogta aan helayno, oo ah mid xasaasi ah, ayaa tilmaamaysa in dalku wajahayo khatar dibadeed oo aan horay loo arag. wararka soo baxaya ee sheegaya xadgudubka Israa'iil iyo damaceeda ku aadan aqoonsiga maamulka Somalilan ayaa ah dhabarjab weyn oo ku socda jiritaanka iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh wuxuu gartay inaan cadowga dibadda la waajihi karin iyadoo gudaha la isku haysto. wuxuu gartay in haddii guriga gudihiisa uu dab ka baxayo, aanad damin karin kan deriskaaga ku soo haya. sidaas darteed, booqashada xalay waxay ahayd baaq ah, war hooy Soomaaliyey, cadowgu wuu inagu soo maqan yahay ee aan safka isku toosinno. waa fariin ku socota mucaaradka, maamul goboleedyada, iyo shacabkaba, taas oo leh qarannimada ayaa ka weyn kursiga. dhinaca kale, inta Muqdisho laga dareemayo neecaawda heshiiska iyo rajada, waxaa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ka socda abaabul culus oo u muuqda duufaan siyaasadeed. madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland, oo ay wehliyaan xubnaha mucaaradka ee ku midoobay Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed, ayaa qorshaynaya shir weyn oo aayaha dalka looga tashanayo. shirka Garoowe ma ahan mid caadi ah, xubnaha qabanqaabinaya waxay si cad u sheegeen inay ka tashanayaan qorshaha kala guurka iyo diyaarinta isbeddel dhab ah. ereybixinta kala guurka waa mid khatar ah marka laga eego dhanka dowladda dhexe, waxayna ka dhigan tahay in kalsoonidii lagu qabay hay-adaha dowladda ay lumayso. guddiga farsamada ee halkaas ku sugan waxay dejinayaan istaraatiijiyad ka dhan ah madaxtooyada, taas oo haddii ay hirgasho dalka gelin karta jahwareer siyaasadeed oo hor leh. haddaba, isweydiintu waxay tahay, tallaabadii xalay ee xasan sheekh iyo Sheekh Shariif ma noqon doontaa biyo qabow oo lagu shubo dabka ka soo baxaya Garoowe? Sheekh Shariif, oo ah rugcadda siyaasadeed oo ay wada ixtiraamaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba, ma awoodi doonaa inuu Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ku qanciyo inay yimaadaan miiska wadahadalka ee uu madaxweyne xasan oggolaaday? mise xubnaha Golaha Mustaqbalka waxay ku adkaysan doonaan go'aankooda ah inay iskood u tashadaan? dareenka shacabka Soomaaliyeed waa mid kacsan. qof kasta oo waddani ah maanta wuxuu farta ku hayaa wadnaha, isagoo ka walwalsan halka uu dalku u socdo. Soomaaliya uma baahna burbur cusub, uma baahna isqabqabsi dastuuri ah, umana baahna in cadowga shisheeye uu ka faa'iidaysto kala qaybsanaanteenna. kulankii xalay wuxuu shiday iftiin yar oo rajo ah,
laakiin iftiinkaas si uu u noqdo qorax dhacda waxaa loo baahan yahay in dhinacyada kale ee maqan ay aqbalaan gogosha nabadda. Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa laga rabaa inuu fuliyo ballanqaadkii xalay oo uusan noqon hadal afka baarkiisa ah. Waa inuu la yimaadaa ficil dhab ah oo lagu qancinayo dhinacyada tabashada qaba. Dhanka kale, madaxda Jubbaland iyo Puntland iyo guud ahaan mucaaradka waxaa la gudboon inay eegaan maslaxadda guud. Haddii Israa'iil iyo cadowga kale ay u soo tafaxayteen burburinta midnimadeenna, ma ahan wakhtigii la isku haystay kuraas iyo awood qaybsi. Waa wakhtigii la isku hayn lahaa dalka. Ugu dambayntii, warbixintan waxaan ku soo gunaanadayaa fariin ku socota dhammaan daneeyayaasha siyaasadda. Taariikhdu way idin qoraysaa. Shacabka tabaalaysan ee abaarta iyo colaadu aafeeyeen idinkay idin sugayaan. Habeenkii xalay wuxuu ahaa bilow wanaagsan, laakiin maalmaha soo socda ayaa qeexi doona masiirka Soomaaliya. Ma waxaynu u dhaqaaqi doonaa dhanka midnimada iyo wadatashiga, mise waxaynu dib ugu laaban doonaa mugdigii khilaafka iyo kala tagga? Jawaabta su'aashaas waxaa haya ragga maanta talada dalka haya iyo kuwa u raadinaya. Laakiin hal mid ha ogaadeen, Soomaaliya waa dhiig iyo dhul la isku soo huray, lamana ogolaan doono in ay ku burburto damac siyaasi ama duulaan shisheeye. Waa in la heshiiyaa, waa in la iscafiyaa, waa in dalka la badbaadiyaa. Haddii aan wax yar gudagalno nuxurka siyaasadeed ee dhacdadan, tallaabada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay muujinaysaa in madaxtooyadu ay dareentay culayska godoonka siyaasadeed ee kaga imaanaya maamulada dalka iyo mucaaradka fadhigoodu yahay Muqdisho. Isbeddelka degdega ah ee mowqifka madaxweynaha kaas oo ka guuray anigaa talada haya una guuray aan wada tashanno, waa calaamad muujinaysa in khatarta dibadda sida arrinta Israa'iil iyo Somaliland ay tahay mid dhab ah oo u baahan midnimo qaran oo degdeg ah. Si kastaba ha ahaatee, guusha istaraatiijiyadan cusub kuma xirna kaliya heshiiska Sheekh Shariif, balse waxay imtixaanka dhabta ah mari doontaa marka la eego sida ay uga falceliyaan isbahaysiga Garoowe ee ay hogaaminayaan Siciid Deni iyo Axmed Madoobe. Haddii Sheekh Shariif uu noqdo buundada isku xirta labada dhinac, Soomaaliya waxay ka badbaadi doontaa qalalaase dastuuri ah, laakiin haddii la is-afgaran waayo, dalku wuxuu wajihi doonaa xilli kala guur oo aad u adag. Halkaas ayaan ku soo xiraynaa barnaamijkeennii gaarka ahaa ee aan ku falanqaynayay xaaladda cakiran ee dalka iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee siyaasadda. Waxaan rajaynaynaa in daruuraha colaadeed iyo khilaafka siyaasadeed ay ku beddelan doonaan neecaaw nabadeed iyo wadatashi dhab ah oo danta guud lagu hormarinayo. Soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiyeyaal isu tanaasula iyo shacab u midooba ilaalinta calanka. Ilaa iyo kulanka dambe iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh, waxaan idiin rajaynaynaa nabad iyo nolol. Soomaaliya ha noolaato. Nabadgelyo.